dadkii ilaahay way ka tageen labadan neef oo dhitaa oo haraabo hoomu yahay xaqaaba la geeyo hoomu inuu baxtada abaarta ku dhufatay deegaanada xeebaha Soomaaliland ee gobolada Saaxil, Salal, Maroodi Jeex iyo Awdal waa mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa. xoolaha ay haysteen qoysaskaasi ayaa maalin kasta u dhimanaya tarab maadaama ay abaartu laba jirsatay. kuwooda ruqda ee markaasi tahri waaya socodka waxa lagaga tagaa goob cidla ah. laba neef oo aad u ildaranoo markaasi kiki kari la oo wadada ag fadhiya maarigaaga kamid ahaayeen ها walaal aragay ka hadheen labadaasi way tal waxay u hadheen labada ma ahayn maalin walba 20 neef man ka yimaada oo ay abaartu saa u saameysay ugu taal u hadhay xitaa biyaha dameeraan ugu rarnaan ugu geynaa halkay ku hadhaan bood adduunyo weeyna waan ka soo aqla beela marka way dhimanayaan way dhimanayaan arigu qiyaas ahaan 30 cisho ugu dambeeyay ari intee leeg baa ka dhintay oo abaarta iyo gaajada u dhintay iyo biyaanta waxaan u malaynayaa inay 40 neef noqonayso 40 neef inta la joogo uun baan ka hadlayaa 40 neef noqonayso maalin walba waxun baa ka hadhayo oo dhimanayo waxa dixira ku soo noqonaya ma wixii kolka ka hadhay taal sidoo kale waxa halis ku jira nolosha qoysaskaasi gaar ahaan kuwooga maatida caruurta iyo haweenka deegaanada xeebaha ayaa ay nafaqa darrabaani soo food saartay waana mid sahayan karta nolosha dadkaasi waxayna u baahan yihiin gurmad joogto ah inta raxmaadka eebe laga gaadhayo wayaagteeda xawa warbaan haystaaka meel halkaas oo dhexdaan ka soo guuray biyo baad midna ma hayo halkii aan ku soo dhacayna biyaan ka taaganahay marka waan oomanahay ubadka jiqiqda hayaan sita dumarka la lamaanay bila nafaqadana waan wataa bila dhiigba iiga hadheen waa ku waa taagan waxaan ku qulaamay midna ma hayo biyo laan bay iga daran xoolo way naga wada hadheen gurmadka degdega biyo u daran iyo raashin labadaas way u daran yihiin guri baa u daran iyo biyo labada laga maarsamayni waa biyo iyo raashinka weeyaan waa ka caafimaadna ma hayaan halkan imika cisho dhawayta gabadh baa ku umushay way dhiig baxdo orba dhiig joojin laga waayo way caafimaad male meesho waxba ma yaalaan waa qaxarka baawurka dalbatay argeysa kaaga ma sokoyaan Jabuuti baawurku intuu soo socdaba way dhiig baxaysaa inta ku dhimatay inta la qaaday la ambalaasay laba isleeg weeyaan waa ka in adeero aad bay u liidan nafaqa darro way jirtaa xoog bay nafaqa darro u jirtaa caruurta iyo dumarka ku badan tahay dadka waaweyn labadaas ay ku badan tahay xumad way jirtaa xumad baa haysa xumadan dadka haysa xoolaha haysa dadkana way haysaa cali oo kamid ah qoysaska degan Bildaaley tiraariya ayaa kaga leeday intii ay abaarahani jireen xeryaha qaarkoodna waa ay haawanayaan oo xoolihii ayaaba ka dhamaaday waa arkaysaan oo nala arkaysaan xoolaha waqtigooda geedka saaran waxaan u saarnay dawaanu iskaga weecino haddii aan dhulka dhig lahayn bahalaha yimaada ee cuna bahalaha aakhirkana carruurta cunaya marka waanu iska basrin oo wana kaynta saaran dawa abaarta xoolaha gaaja laysay iyo abaarto abaar laba jira xoolaha ay soo laysay waa abaar wax xoolaha la geed walbana way saareen giga walbana way yaala aniga xoolaha iga baxay imka tiradoodii oo sugan idin sheeg maayo laakiin boqol kor bay u dhaaftay orgigaas waa orgi gaariga ugu weyn xoolaha wixii kalena way dhinteen noocaas daba ugu dhiman jirin in badan buu waa kii ugu nolol dambeynayay yaa waa orgi shan jira laba habeen buu noolaa marka cidina ma wax laga bariyayna waa la garan waa ka baqtay tirada baqtiday aniga xoolaha adu reeraayga halkan degan marka nin walba wixii 3 meelood laga dhigo 2 meelood saasay u baqtay way baqtay intii kalena waa taa waabka hoos fadhida waa ku ayagoo nool waa ka hoos fadhiya baadna ma hayaan biyana ma hayaan calafna ma hayaan dadkii baaba imika xoolihii daba socda haddaan dee ilaahay ka soo gaarin yaa markaa hay-adaha waxaanu ka codsanaynaa in maadeeraya dee imika xoolihii hadalkoodu waa u dhammaadayba waa in dadka lagu soo gurmada hay-adda khayriga ee Al-Raxma ayaa gurmad biyo dhaamisa gaarsiisay qaar ka mid ah deegaanada xeebaha Soomaaliland waxaana ka mid ah dadka ka faa'iideystay biyo dhaamiskaasi kuwa ku nool deegaanada Foodka, Bildaaley iyo Xayaabley waana kuwan iyagoo hay-adda Al-Raxma u mahadnaqaya hay-adda Al-Raxma ee noo keentay biyaha socda anaga aad u ooman
يا ما هذينا خير الله سيو وحنا uga baahannahay in waxa wax ka kordhan inay noo keento bal yadii bawligo ma yeesha aad baa ugu dalay wayniga aan arkay biyo inoo keenay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxay hay'adii hay'adda la yiraahdo Al-Raxma maalintii hore baaqi fiicnaan dirnay si fiican bay nooga soo jawaabtay biyo inoo keentay biyihii si fiican baa naloo soo gaadhay oo dhaqsale waxaan doonaynaa biyihii waa noo keenay dee in maxay hay'adii nala ogaado oo baadkiina naloo soo gaadho ayaan doonaynaa inta raxmaadka Ilaahay imanaya dee Ilaahay naga soo jabinay abaarta waxaan doonaynaa in la ogaado oo aan la ilaawin oo markasta laga warhayo ayaanu doonaynaa xoolina sidii un bay nooga jilicsan xayeeshna weeyaan sidii bay xayeeshu yihiin marka waxaan doonaynaa de maxay hayday de baad iyo biyaba in maxay hayday naloo de si fiican loogu keeno waana u mahadnaqaynaa hay'adda Al-Raxma Ilaahay halkii ay ka soo saartay Ilaahay wax khayr qaba inuu ugu bedelo u galiyo biyaba deeqdi ugu horeysay biyaha Al-Raxma noo soo keentay imika ayaa noogu horeeyay wax deeq soo gaara ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waan ugu xamdinaqaynaa mukhtaar mursal xiin Home Cable TV deegaanada xeebta Somaliland.